بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كسو دواada Saafi channel oo aan kaga hadalno waxyaabo faa'iido u leh bulshadeena. Maanta marka maxay ahayto muddo maadaama aan ka maqnaa YouTube-ka dad badan oo dadka igu xidhnaa ahaana ay aad ila soo xiriirayeen muddadaas aan maqnaa ayaa su'aalo badan isoo weydiiseen oo ku aaway oo xagee aaday oo ma fiican tahay maxaa kugu dhacay maxaa la maqan tahay goormaad soo noqonaysaa su'aalo badan aan idinka helay marka maanta waxaan rabaa inaan wax idinka sheego sababtii aan ku maqnaa in dhaweyd oo sanad ku dhow oo aanan face to face usoo fadhiisanin meeshaan sababtii koobaad waa la socotaan oo allah u naxariistay odagayga waa tuu geeriyooday sanadkii hore bishii March geeridaas markay nagu dhacday kadib waxaa maxay ahayd markiiba xanuunsaday hooyaday allah u naxariista hadda waa geeriyootay iyadana hooyo markaa waxay xanuunsatay like maalmo yar kadib markuu odayga geeriyooday allah u naxariistee dhakhtarkaa la geeyay dhakhtarkii maxay ahayd waatuu koronahana lockdownkii u horeeyay ayd koronahana markaas wadanka ku cusbaa laba wiiga hooyo dhakhtarka ay ku jirtay labadaas wiig marka qof uma tegi karaynin of course waa barigii lockdownka weyn uu jiro u horeysay iyaga uuna soo celiyay markii la soo yara daadaaway waa la soo celshay maalintaas laga bilaabo oo ahayd April last year hooyaday waxay kortay sariirta marka xanuunkeedii wuxuu ku dhamaaday inay sariirta ku ururto alxamdulillah horta barigaas koronaha waalan jirayna ilaahay waa ka badbaadiyay iyada sababtii dhakhtarka u gashayna korona ma ahayn xanuuno kale iska haahayay dhakhtarka loo dhigay bas marka xanuunka marka hooyada waxay noqotay qof sariir saaran oo care u baahan ay noqotay marka horta geeridii odayga lockdownadii caruurtii iyo anigii nolol cusub inaan isku adjust garayno hooyo xanuunsan oo sariirta noo kortay howlo badanaa marka soo kordhay saas iyadoo arrinta ay tahay haddana hooyaday allah u naxariistee bishii December haddana xanuun kala qabtay dhakhtarka la dhigay dhakhtarkii waxay ku jirtay 72 maalmood 72daas maalmood 4 goor oo kamida waa naloo yeera soo carara hadday dhimanaysaa soo carara hadday dhimanaysaa soo carara adiga maalinteedii uunay dhimatay allah u naxariisto waqti adag oo warwar badan ayuu ahaa 2 bilood in ka badan ay dhakhtar taalay riskiga coronavirus-kana very high uu ahaa dhakhtar weyn oo waxay ku jirtay maalmihii hore Central London ku yaalo fiican dhakhtarkaas iyadoo ku jirto dhowr goorayna dhaheen aan iska dayno macnaheedu qofkaan rajo ma lehe daawada iyo waxa laga daayo just iska ogolaada inay sariirteedaas waqtiga ku sugto marka dagaal badan iyo tacab badan iyo muran badan ayaa meeshaas marka ka dhacay ma saxiixi karna saxna ma aha macnihii bini aadanimo diiniyana sax ma aha inaad waalidka maxay too lagu yiraahdo saxiixa iska dhintee daawooyinkii everything aan ka joojino rajo ma lahane marka waa garan kartaa hadii qofkaagii oo xanuunsan oo lagu yiri rajo ma lehe aan wax walba ka laalaabno macnihii xanuunka ay leedahay waad qiyaasi kartiin dagaalkaas adigu wuxuu soconayay hooyana ay rafaadaysay 72 maalmood sida badan maalmahaas ay nawacayaan leeyin kaalay macsalaameeyo mooyaane lama ogolayn hospitalka inaa loo tago markay ka shakiyaan isdhahaan hadday dhiman rabtaa markaasina wici jireen 2 maalmooda markaas aan jaanis haysanaayo dul taagnaadaa kadibna albaabka waa iska fiican tahay hadda iska taga bas ma noo imaanina
adiga sidaas ahayd hospitalki weynaayo centerka waa laga soo saaray 2 maalmood oo weekend ah ayay guriga joogtay Friday la soo saaray Saturday Sunday guriga joogtay Monday hadana waxaan qabtay hadana halala cararo this time markii lala cararay dhakhtar xaafada ahaa la geeyo aynaan saas u jeclayn dhakhtarkii xaafada markii la geeyay 4 bari markay ku jirtay oo like Monday la geeyay Friday diba waxay dhaheen waana lala soo hadlay waxa la yiri hooyadiin corona ka helnay meesha hospitalka ka dhex qaatay of course markii la gelinayay maysan qabin oo waa laga qaaday laakiin markii 4 habeen u hooyatay meesha taski laga qaaday positive uu noqday Saturday di markii waxay dhaheen waxaan u transfer gareyn Friday di markii la helayba meesha corona dadka corona qaba meeshooda la geynaya ayaa la yiri meeshii corona ayay markaas waa ka dagaalanay waxaan dhahnay ma dhici karto tas labaad ku sameeya ka hubsada hadda waxaan iska qiyaasaynay qofka xaaladaas ku jira hadii maxay ay corona ugu darsamadee waxa waaye waa disaster marka meeshii adiga waa corona qaybtiisa la geeyay hooyaday wiil walaalkaya maalintaas u tagay hal qof aan idin ogolaanayna yiraahdeen halkaas qofna ma soo bedeli kartaan halkaas qof aan noo imaanayo markuu imaanayo halka qofna 10 daqiiqo meesha taaga joogi kara bas because wixii 10 daqiiqo ka badan waa inuu self isolation sameeyo noqonaysa so waa in and out 10 minutes aad joogaysa hada 10 ay kugu dhaafto next day ma soo noqonaysid ilaa aad 2 weeks self isolation soo sameeysid marka dealkaas saas u ahaa marka waxa sad ah wiilka walaalkay wuxuu yiri hooyo 5 islaamood oo kala meesha kula jiray 5tii of course hadii qolkii qof qaba laga helay ee kullina way wada qabaan marka wuxuu ku leeyahay 1 by 1 islaamihii wuxuu yiri loo transfer gareeyay meeshii wardkii ilaahay baa ogyaa ka soo noqday meeshaas uma maleynaa inay cidna ka soo noqotay hooyo 3 week ayuu bahalkaas haayay adi 2 week ay ku jirtay meesha corona weekii dambana qol yar ay kaligeed dajiyeen Allahu naxariistee 14 February 2 week ka hor maanta 2 week ka hor ay dhimatay hooyo iyadoo ahad ay tahay maantana waa ahad 2 weeks ago Allahu naxariisto marka corona of course waa jiray waa ku dhacay laakiin corona umaysan dhimanin corona ay ku sheegeen inuu ku dhacayna ilaahay waaba u yasiray dhibaatooyinkeedii kale iyo xanuunadeedii kalaaba ka badnaa marka wax macnaheedu dheeraad uu corona ku soo kordhiyay hooyo xaaladeeda nooma muuqanaynin wax ma lahayn temperature maysan lahayn ma lahayn qufac ma lahayn neef qabad wax corona symptoms oo ka muuqanay ma jirin alxamdulillah horta intaasba waxbay ahayd hadii kale de saddexdaas waxay wasiir rafaadi lahayd marka ilaaha uga gargaaray ha ku dhaco laakiin waxba xaaladii ku jirtay macnihii ma sii xumaynin marka alxamdulillah adigu maalintaas ay dhimatay maalinteedii sugaysay intaas oo dhan waxa waaye intaas oo corona iyo intaas oo dhakhtar iyo intaas oo hawlaba way soo martay laakiin da saacadii lama baajin kara saacadii intaas ku ekay marka Allah u naxariisto hooyo waxyaabahaas oo the family xaalada family ah ayaa horta aan ku mashquulsanaa corona marka dad badan oo de wadanka uu hayaa wadankeena hadda aad u hayaa la yiri ilaahay dadka ha ka badbaadiye marka maxay ahayd horta xaaladan ku maqnaa taas ugu weynay waxaan rabaa marka maxay ahayd intaanan videogan dhamaynin inaan u mahad celiyo ilan sanad meeshaan hadda ma soo fadhiisan face to face maantaan soo fadhiistay dad badan oo maxay ahayd dadka igu xirana maxay ahayd markii aan videogii odayga aan soo geliyay geeridiisa isoo tacsiyeeyay oo tacsi iyo magaranaysa ducooyin badan iyo noo soo diray oo noo hiiliyay oo na garab istaagay kulligiin waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin jazaakallah
معنيه دعاء نود عيسين وهنت ندلا عيسين يقرب استاجر موجسين كلهم وحن إذن لي جزاك الله وما تسنتهين وحن كلون روا حتى إن ما أنتنا عن إذن قعد صدق إذن كورالية إن عاد محي أهيتو هو يذينا الله ونحرسته عاد محيتو مركز مسج كان مقشان عاد دعيسان of course إن عن إذن ويدي ما بقى واتسمين دونتين وهبا qof walbo muslina intaas waa waajib maxay ahayto intii umada ilaahay iyo wixii dadkeena umada muslimka ah aan dhaho muslimka iyo wixii dadkeena aheen Soomaaliya oo dhan waxay u duceyneynaa in ilaahay u naxariisto annakana ilaahay inuu na badbaadiyo oo maxay ahayto nooga daba naxariisto dadkeenaas waa noogu duceynayaa videoga de intaasaan kusoo koobayaa maanta maxay ahayto videogan waa tacsi iyo warbixin insha Allah videoyada kale ayaan wixii ka faa'iideysi ah idinku soo gudbin doonaa waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullah